الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحيرنيكي جرا الدنيا ذا نيتشوجو محا أركتي كل لابن سنجوبا وحلاقة هي الله ونحيستي وحبان كل شيء لا بير محاد إيش شيء لا يبتر وحن كل شيء لا إنان سليمان تنقونين إنان الدنيا ذو شيء بدافن أيام كل شيء لا وحن كل شيء يا سعيد هلومبو إيه كوحدة مدحكوتي داي هرجو ميسي صدق كسندود وما تصوري اللي بهايستي ويصير معتي بنتي propagandadii shacabka Soomaaliyeed laga dhaadhicin jiray iyo wixii ummadda Soomaaliyeed lagu ragaadin jiray way dhamaatay Saciid Hulumbe iyo kooxda la socota ee Team Fairis aamina waxaan rabaa inaan isdul taago ninkii Saciid Hulumbe ah oo Muqdisho u socda wuxuu yiri dan baatriye xaraga looma soo degin dan baa u rusheegtay Saciid Hulumbe iyo kooxdii isaga la midka ahayd hargumaysi qodobkeena koowaad baa si fiican ugu falanqeynaya Puntland waxay ka dhigeen Team Fairis xero ay inta dadkii ku soo ooteen laga bilaabo 98 Puntland dhis ilaa iyo maanta derbi ranch lama marin derbi isbitaaladii iyo saldhigyadii iyo xarumihii dawladda siyaad barra dhisay baa ilaa iyo maanta dhisan maalin walba nin baa yimaada waxbuu ka urursadaa baladeegi xilliga Cabdullaahi Yuusuf de waa waxba ma jirino kabkab waa dadku yaga dhaqaalaha iyo lacagta bixinayo siba idhaantay laakiin laga soo bilaabo xilligii Faroole xitaa cadda Muuse waxba ma jirin xilligii Faroole ilaa ay maanta maalin walba nin baa yimaada kiish lacag buu qaataa ganacsi buu ku samaystaa gurigu ka dhistaa Mareykan iyo Yurub iyo Nairobi reer Puntland baa Puntlandnimada aamina filinki waa soo afjarmay filinki la oran jiray Puntland baan nahay cadow hawiye leeyahay baan leenahay Muqdisho waa inoo cadow Muqdisho waa sidan barina tunka lagu soo qaato waa soo dhamaatay waxa idinku daliilkeed ah barnaamijkii diyaaradaha la qaadan jiray makanaysa mucaaradkii baa soo degay Saciid Hulumbe baa madaafiic Muqdisho la galay gam laba sanadood oo dhalatay oo dhamaatay wuxuu la taagnaa Muqdisho waa cadow oo hawiye waa cadow وحسن الشيخ وعدو ما أنت إسقو باتي كتير إنسان باتي إسقو كتير إنسان بمقدشة وصعدا وحن رأى مركز ضدك لو شكيني مقدشة وعدو يحسن وعدو يوحوي يدور عن إسكديم يدور كل اللي فيه بلاد يجي نعيبك يحمها يعنفك يعقدد يدل لماذا Saciid Hulumbe reer Puntland reer waqooyi bari heer u gaaray eegay niman goosata ah oo argagixisa ah oo jabhad ah oo SNM liidahdo oo waxa weeye dad halka ku afdubtay masaakiina inuu isu dhiibo ay gaarsiisay oo wixii la ogaa sameeyay eegay geedka dheer iyo geedka gaaban baa u fuushana inay baabacdo ee ceer gaaba bixiyay ee la sqoray lahaa waxa weeye idoor baa mas'uulka ah ee odayaasha kafanta ku duubay miyaan soo tirin karaa wuxuu ceeb geystay kii maanta isagoo baati ka jilicsan oo hoganaya eegay ayuu Xasan Sheikh isu dhiibay bal hadaba Team Fairis oo maxay idin xala dadkii Saciid Hulumbe lahaa war waa bahal ay dabanana war yuu ku cun ay dabanana war waa doqon ay dabanana war waa Hulumbe ay dabanana ay qeynay afka abuurka ka sii deeniyo maanta maxay idin xala Saciid Hulumbe isagoo maata ah oo jilicsan buu Muqdisho ka degaya wixii garbay noqotay caashaq inaan daba gurgurtaa adduunyadii shil baa dhacay shurunshuur xun baa kacay awr wada sharaabtii shanballaa dadkii helay xuma shiiqsataa timi dadkii afka abuurka ka sii deynayay eegay ee lahaa Xasan Sheikh baana soo weeraray Puntland baa la soo weeraray hawiyayna soo weeraray ciidan federaal baa la qoranaya oday weyn waan nin oday anigu waan u haystay eegay oo qarjab li yiraahdo intaan ka aqaanay nin macquul ilaaha oo maanta TV-ga fadhiya baan arkay oo wuxuu leeyahay Puntland baa la soo weeraray ciidan federaal oo haddaan ciidan federaal ah Puntland laga qorin oo ciidan dawladda federaalka aanay mushahar siin oo aanay dawladda federaalka u register gareysnayn ma reer bay u register gareysnaan lahayd Puntland sameeyanay Soomaaliya ka mid ahayn bal aqli xumada iyo damiir xumida iyo dadnimo xumada iyo iimaan la'aanta dadka ugu sheekaynaysan war Saciid Hulumbe qarjabo isaga maanta isdhiibay maxaa adeer ku wareeriyay adiga Puntland waxaan ogahay kumbatriya 100,000 oo ciidana Puntland inta laga qoro bay dawladda dhexe federaalka hoos tagayaan Xasan Sheikh baana madaxweyne ah ra'iisul wasaaruna waa Xamse xukuumadda Xamse inuu hoos tagayaan sidee kugu tahay sirba ma aha ma yada siraba
annaga kule sirba mayada ah caawa hadii uu boosaaso iyo garow iyo gaalkacyo tago ciidan Puntland leedahay baa dawladda federaalka ay qoranaysa dawladda federaalka ama mas'uulka ah Puntland baa lagu carqaladaynaya Puntland maxaa u reebteen maxaad Puntland u reebteen oo haray team Fayris iyo Saciid Hulumbe iyo xaafadiisa iyo ilmo geesood maxay u reebeen Puntland shilinkii soo baxa wallahi billahi tallahi dadka reer Puntland baqtiga xalaal u amaanta abaarta iyo gaajada iyo rafaadka ka jira Puntland meel ay ka jirtaa inaan jirin meesha 27 sano dhisnayd maamulka ahayd dawladda ahayd dawladnimadii ka shaqayn weyday dawladda dhexe cunaha haystay habeen madaxweynihii yiraahdo cunaha iskaga duubiyay ilaa Sheekh Shariif iyo ilaa Farmaajo Xasan kan maanta jooga halka ku dhaganayd maanta waxa loo laayahay baan kuri hal riig baa Puntland laga laayahay dadka masaakiinta ceel u qoda niman dhalinyaro oo TikToker waxa weey Muqdisho meelaha ka yimid maalin dhowto xaliin waana la soo weeraray Puntland baa la soo weeraray waxaan arkay social media isqabsaday iyo TikTok anaga la soo weeraraya Puntland fanka faata bakhda beenta iimaan la'aanta Saciid Hulumbe hadaad maqashid iimaan la'aan iyo doqoniino iyo fan aan meel la jirin iyadoo qof hadaad rabtid waa Saciid Hulumbe team Fayris waxaan rabaa markay inaan idin weydiiyo maanta qoliyihii la 3 sanadood loogu soo sheekeeyay Xasan Sheekh Waacadow idoor aan isu dhiibno SNM ba walaalaheena waqooyi bari hal la baabiyo ceerigaaba hal la siiyo wada kasta loo soo maray oo waxa soo xumaana loo geysano lahaa waqooyi bari iyo dhulbahanta iyo firdhi abaal ma leh abaal sidii aad moodid inay Saciid Hulumbe abaalka u gashay waqooyi bari maxay tahay waa isdaad raaciyay halka intuu intaanu qabanay maanu dhidi gal hadii kala waa tagaysa muxuu qabtay maciidan buu geey معالف محو قبطي معيدا Puntland leedahay oo la yaqaano Puntland dariirado ciidan la yaqaano Puntland leedahay ba waqooyi bari la socod ka dagaalantay masareera ka dagaalamay anaga dadka jifi qoys iyo laf waxa weey hubka iyo qoriina la soo bax hadii kale hooyadini kibista iyo kalluunka iyo dhitada iyo caanaha wareejin jirtay ay iyo karibaash baanu dadkan ku soo saarnay iyo inay ismuujiyaan anaga tolka la soo baxnay muxuu qabtay البهانته وأبال البهانته وأنا قاعد أبال راعي هاي هوية نقرع هوية سعيد هلوم ما أنت إسقو دريركو كذا ضنايو حتى واحد يريهوب مسوق هذا كرت أفكر قلات do you know إلا حتى هوب مسوق هذا كرت فانكي يا فاتا بخدي بشيك على قاطع إذا ماذا BMPF إذا ماذا بهالك أحبك كمان كنان شعب أديكو أبال يريك هالي أنا هي صوبها شوك برتاضنيو عيد لكم بحنا والله isbartay sanadka 2026 waxa soo afjarmay xalaalay wixii madax ku tiloora jiray hadgu meesha loo rajay Axmed Madoobihi shalay halka faata bakhliini fad ama hafadin waa lagu fadsiin iyo dhareerku ka daadanay maanta Muqdisho ka dagayaan oo xitaa 4 wiil 5 wiil ka badan diyaarada lama hubkii la qaadi jiray madaafiicdi hubkii waa way baasuukayaasha ma jirto 4 wiil ka badan ma soo kaxaysan kartid bali isaga Axmed Madoobe هاي ماذا مرك فاتا بختي يفانكي بدي يعباتكي يوحي لقش كيني ماذا تيم فيروس بالمانطة لها الضياع هات برهانكم أنا قاعد دولة نبض ربنا أنا قاعد دفاعنا أنا قاعد حصل شيء وحوي مدحوينها يجي هاي أنا قاعد حمس مدحوينها يجي هاي اللي بدي نبوه دامان مدحكوت يودن حسن يوحد داما يحمس داما وما أنت مصيركم أنت الصومالية دلكي يدتكي بدباديني سيدين إلى صفريستا بوداري حسن شيخ بقى والله وبالله وطالله بانا حسن شيخ نواقون حمزة نواقون لكن أنا قفك وناكسن إيه مركو قفك خلدية هنا رحمة الله شجع مركو صحية هنا وقطع غيره دين تانا نفريسا سننك صحدا يوحوي عقيدة صحدا أنا تاسوي قفك وناك مركو قبتين تكون بوريسيت مركو حمان قبتنا أتكقبتت أنصر أخاك الظالما أو مظلوما وي رجي لها سوق حلو سوق الماء ولا وذا هذا يا وذا هذا المتشري sanka lagaga tolay toobin baa lagu galiyay toobin inuu Muqdisho ka soo digo isagoo 4 wiil staff wata isagii Axmed Madoobihi munaafiq ahaa ee kismay fadhiyay ee ragaadiyay dadka Xasan Sheekh waa hawiye haduu hawiye yahay yuhuud ba maanu qof islaam ahayn maanu wax saxi karin eegay maxay shirtaa anaga colaada hawiye naga dhaxaysa hawiye dad Soomaaliyeed waa dad walaalahaya diin iyo dal iyo aqeedo iyo calan ma naga dhaxay ciid
waxa annaga aan soo qabnaa maxay tahay waxa ku ogoon goosadka aad ku taageeraysaan daalimiinta ee aad uga soo horjeedaan Xasan Sheikh eegay hawiyiisana maaha daaroodiisana maaha kaad gabalkii go'ay oo dhintay oo baqtiyay oo fashilmay baad xoqanaysaan ila dhigo baroortan ila dhigo baroortan laakiin aniga shan booyadooda biyo qaaday dadka reer nugaaleedka ay abaarta hayso muugiis waa maya wasiir cararaya oo booyada biyo sida miyaad aragteen dawladda dhan maamulka dhan ee 30 sano ku sii dhow hal riig ma haysto hal riig oo dadka biyo ugu soo qodo dadkina waa leedeen dadkii xoolihiiba waa leedeen markaas halka ay loo soo fadhiyaa dawladda federaalka Puntland bay dibinaysaa 1550 kun oo ciidan bay dawladdu qoranaysaa xaq bayna u leedahay caawa Xasan Sheikh madaxweynaha waxa leeyahay macaawina gaarsi Puntland dadkaas riigag u dir oo ceelal u qod adaa dalka madaxweynaha ah cid iska horta ay kartaan ma jirto 5 kun iyo kun baad ka shaqeysaa 550 kun oo ciidan buu qoranayo dawladda dhexe Soomaaliya iyadana dalka mas'uulka niic iyo sheeka jirsan looma baahna qarjo waxaad ka haraadaysaan baan u garanay ki hulumbe wuxuu ninkii halaba hablaha la hadlay hulumbe ma soo sheega hulumbe Saciid hulumbe baa caawa dheerka daadanaya Xasan Sheikh khadka ugu jira Muqdisho u socday isagoo maato oo jilicsan waxa uu Muqdisho ka tagay maxaa ka hadlaysaa adigu marka Puntland baa la dubinayaa Puntland baa la soo weeraray hawiyana soo weeraray oriyaa waxaan ku sheegaa amu aniga ma maqli iska nasaadeer kiniiniyada qaado iska naso niic iyo sheeka jirsan looma baahnay qodobkan waxa isku dultaagnaa madaxweynihii galmudug madaxweyne ku-xigeenkii galmudug Ali Ciid Xamsan Muuse Xuseen ayay la soo fariisanaya bal hadeegi nin qura oo waxa weeye xitaa kelmad oran kara ma jiro cid kale iska daa Itoobiyaanka ka baqayaan iyo Kenyaadka reer ka jira meelaha satraamid ku qabsanaya oo la kufsanaya isli nin laandheera ah madaxweyne ku-xigeenka galmudug waa maamulka qura galmudug ee u jawaabay Trump oo yiri waxba kama jiraan Soomaaliya oo dhan baa yaabtay warunkani muxuu ahaa bali ninkan muxuu ahaa waa madaxweyne ku-xigeenka galmudug Ali Ciid Baliyad bal wax yar la dhigtay ninka laandheernimadiisa iyo ninka xiniyaha ku jira ee cag war ninka raga isma qariyo wax yar Soomaaliya iyadu wax yeerinayso oo hawlo kale ku mashquulay anigu muwaadin Soomaaliyeed baan hay arso hela maamul goboleed Trump iska daayay Kenya caawa haday wax ka sheegtay Uganda u jawaabi kara dawlad dhexe ma arkeen Muqdisho ma maqleen laba xiniyood inta la leeg bala soo baxayeen waxaan idin sheegayaa marka ummadda Soomaaliyeed sanadka maanta way soo dhamaatay sheekadii loo rajeeyay daaroodiisamka iyo hawiyiisamka kaar dambe oo la xoqanayana ma jirto annaga jeexjeexnay nin kasta aku tala galo madaxweyne Ali Ciid laandheera dhalay warninku libaaxsana nimankan isma qariyaan madaxweyne ku-xigeenku waa mareexaan waa yaani nimankaasi dawladnimada iyo wadaniyad iyo markay noqoto waxay hayaan dhulka dhigayaan waa ismadax marayaan waaba ismadax marayaan haday arkaan iyagoo la shito kugu maalay baan ku leenahay Ali Ciid kugu maalay waa madaxweyne ku-xigeenka galmudug wey maamulka galmudug waad aragtaan maamulka la hadlay ma aragtaan cid kale hadlaysa ma jirto qarjabna halka la soo fadhiya ciidan baa la qortay waa la qoranayaa miyaa tiriye ilaahay baan ku dhaartay 60 kun baa loo qorayaa 60 kun dalku dawlad buu leeyahay Xasan Sheikh waa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Xasan Baatuuga tuuganimadii oo qof hada maqashaan waa dani gabigeedba shirkad buu ka dhigay company ima geesho loo yihiin Puntland ka dhigay dadkina gaajaysa ugu leeyanayaan adag midka arkay maatada waxa haysta baayoog iyo balanbal haraad bay u dhimanayaan reer Puntland Puntlandnimadu maxay taraysaa maxay Puntlandnimadu taraysaa dadka ay waa gaajo u dhintay isaguna beer jannaa uu ka samaystay qarno beer jannaa isaga iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa beer jannaa bay samaysteen hoteelada ugu weyn bay leeyihiin dadka reer Puntland waa kuwa Puntlandnimada noocaas marka qarjo wayada uga shaqeynaysa xamar waa caasimadii Xasanna waa madaxweyne ummadda Soomaaliyeed sheeka jilicsan lama baahna baraha la qoraya shaadan baa la qoraya saakun baa la qoraya wax Puntland la yiraahdo iyo sheekada jilicsan niicda meelay ku jirtaa ma jirto ummadda Soomaaliyeed baan ku bidnaano orod cirka soo lef cirka lagu soo dumay anaga orod soo shidanaga war barnaamijka haduu soo gaarsiin shirkaday khayr iyo baraka idin jiniyo assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh